bismillaahi raxmaan raxiim. marka aan u fiirsano dadka reer somalilan aqoonsiga gaar ahaan waxaynu ogaanaynaa dadka badankoodu inaanay ogeyn waxa aqoonsigu uu yahay. waayo 5 sano waxaa lagu lahaa haddii laydin aqoonsado jannaa galaysa, haddii maanta laydin aqoonsado wax kasta waa fiicnaanayaan, dhaqaalaad helaysaan. marka iyagoo aqoonsiga waxay u haystaan in janno lagu gelayo jannadooda adduunka lagu gelayana waxa weeye dhaqaale, lacag ay guriga ku dhistaan. dadkii muslimiinta ah waxay noqdeen dad lacag jecel, marka lacagtii meel kastaa loo gelayaa. laakiin xaqiiqadu taa way ka dheer tahay. aqoonsigu waxba kuma soo kordhinayo. haddii aqoonsi wax tarayo soomaaliya wuxuu tari lahaa, etoobiya wuxuu tari lahaa, masarba wuxuu tari lahaa. masar faqiirnimada oo taas. marka dadku diintiina way kaga tegeen, ifka wixii doonayeenna way gaari waayeen. marka waxaan ka dhadhicinaynaa aqoonsigu inaan waxba kusoo kordhinahayn, ee iyagu wax isku soo kordhin karaan. hadday iyagu is aqoonsadaan, hadday iyagu kalsoonidooda ay soo saaraan, hadday iyagu is aaminaan inay wax qabsanayaan. haddii ay laakiin islaan dadba wax idinku soo kordhinaya, reer galbeedka wax idinku soo kordhinaya, waxay ku dambeyn doonaan gumaysi.